BBC da laanta afka Soomaaliga ayaa sanadkii labaad sameysay barnaamij abaalmarin gabdhaha da'da yar ee hal abuurka leh taas oo ka qabsoontay caasimadda Puntland ee Garowe isla markaana la guddoonsiiyay 3 gabdhood oo kaalimaha koowaad, labaad iyo saddexaad ku galay hal abuurkooda sugaaneed ee dhinaca gabayga waxaana ka soo qayb galay madaxweyne ku-xigeenka Puntland Cabdixakiin Cabdullaahi Xaaji Cumar Cami qaar ka tirsan golihiisa wasiirro hore xilal uga soo qabtay dowladda federaalka Soomaaliya iyo Puntland madaxda BBC da laanta afka Soomaaliga gaar ahaan Cabdullaahi Sheekh Cabdirasaaq oo ah madaxa laanta BBC da afkeeda Soomaaliga gabdhaha ku guuleystay abaalmarinta saxafiyiin iyo marti sharaf kale ujeedada lagu leeyahay barnaamijkan ayaa waxa faahfaahin ka bixiyay madaxa BBC da Cabdullaahi Sheekh Cabdirasaaq halka Maxamed Saalax oo ku magac dheer Maxamed Xingalool oo goobta ka sheegay sida uu caanka uga dhigay degmada Xingalool ee gobolka Sanaag muddo 2 sano ka hor yaa waxaan baabuur ku mareynay Gaarisa iyo Nairobi dhaxdooda marka baabuurkii waxaan istaajinay si aan u dhageysana gabar ari la jirtay oo gabyaysay dhagtaan la raacnay marka dhaxda intaan aan sii socday waxaa islahaa codkaasi murtida leh ee macaan waa in dunida oo dhan ay maqashaa bila kadib ayaa BBC da waxaa la keenay tartan gabay kadibna akhyaartii waxay isku raaceen in tartanka lagu koobo gabdhaha marka abaalmarintani waxa waaye fursad ay u siinaysaa gabdhaha hal abuurka leh in dunida laga barta codkoodana la maqla BBC dana arintaas ay ugu gol leedahay sidaas darteedna qofka noogu weyn ee noogu xushmada badan ee aan aad u qadarinna waa dhageystaha Soomaaliyeed meel uu joogaba waxaan rabaa marka anoo taa ka duulaya inaan ila tagtaan magaalada Xingalool inaan idin geeyaan rabo magaalada Xingalool maxay yeelay magaaladaasi waxay noo hibaysay nin dhalinyaro ah oo dhageysto wanaagsan ah oo Facebook BBC Soomaali maalin waxaan sheegnay inuu gaar 1 milyan 30,000 anagoo haysanaa ay nagu taxan yihiin 30,000 ayuu nagu taxnaa because ana magaalada Xingalool ma garan jirin waxa ay baray Maxamed Saalax aan ka bartay waxaan idhi Xingalool aad bartay anna waxaan ku bari doonaa dadka xafladda imaanaya iyo dhageystayaasha BBC da runtii waa u mahad celinaya BBC in ay fursad noo siisay inaanu caalamka la wadaagno aaraahda nagu jirta iyo fikradaha nagu jira qof kastana waxaan leenahay fursadaas oo kale waad haysataa xigmadda kugu jirta iyo aaraahda kugu jirtaba la wadaag waxyaabihii markaasi aan kala kulanay ugu cajiibsanaa waxaa ka mid ahaa in maaragtay sheeka dhacday Garowe oo kale inay yimaadeen qolo safara oo Xingalool ka timi oo maaragtay safar ku mareeyay kadibna ay xawaalad damceen inay lacag ka qaataan oo markaasi loo baahday inay damiin keenaan kadibna la yiri ma taqaanin Maxamed Saalax oo ay dhaheen ha waa naqaanaa kadib markii laga jeekimina sidaas lacagtii lagu siiyay anagoo aan meeshiiba joogin ay damaanad noqotay BBC waa u mahad celinayna waxaan ka helnaa warar maaragtay xogag dadka ugu badan ee ku taxan baanahay madaxweyne ku-xigeenka Puntland Cabdixakiin Cabdullaahi Xaaji Cumar Cami oo munaasabada ka hadlay ayaa u mahad celiyay laanta BBC da afkeeda Soomaaliga oo markii ugu horeysay munaasabadan ku qabatay isla markaana ku tilmaamay barnaamijkan mid ahmiyad gaar u leh Soomaalida waxaan runtii uga mahad celinayaa laanta af Soomaaliga ee BBC da oo maanta madaxa laantu Cabdullaahi Sheekh Cabdirasaaq uu inala joogo ugana mahad celinayaa runtii barnaamijkan oo xiise gaara ummadda Soomaaliyeed u sameynaya isla markaana abuuraya ilaalinta iyo soo noolaynta afkii Soomaaliyeed tani waxay ka qayb qaadanaysaa runtii in af Soomaaligi si toos ah loo soo nooleeyo muxuu ahaa madaxa laanta Cabdullaahi Sheekh Cabdirasaaq iyo shaqaalaha kale ee BBC dana waan uga mahad celinayaa 100% ugu dambeyntiina waxa abaalmarinadii kala duwanaan la guddoonsiiyay gabdhihii Soomaaliyeed ee abuurka la soo bandhigay iyadoo si weyn markaasi loogu farxay hanaanka ay u soo bandhigeen qaab suugaaneedka dhinaca gabayga Axmed Shaam Hon Cable TV Garowe